رئيس وزراء دالكا كينيا رايلا أودينغا oo socdaal ku maraya dalal dhowr ah oo ku yaala qaaradda Aasiya ayaa waxa uu ka hadlay gelitaanka ciidamada Kenya ay galeen gudaha Soomaaliya sababihii keenay iyo in ciidankoodu ay ku sugnaan doonaan gudaha Soomaaliya inta la gaarayo xasilooni Soomaaliya loo helo. Warbixin ku saabsan arrintan waxaa dalka Malaysia looga soo diray Saciid Cumar. رئيس الوزراء ayaa booqasho ku mari doona qaar ka mid ah wadamada Asia waxaana xalay casho sharaf u sameysay safaaradda Kenya ee fadhigeedu yahay Kuala Lumpur waxaana ka soo qayb galay dhammaan ardayda iyo shacabka Kenyaanka ee ku nool Malaysia. رئيس الوزراء oo la hadlay shacabkiisa yimid xafladda ayaa uga warbixiyay xaaladda wadanka uu marayo. waa markii ugu horeysay ee ciidamadeena militariga Kenya ay ka tallaabaan xadka ilaa goortii ayna helnay xuriyadda waxayna gudaha u galeen dalka Soomaaliya si ay uga hortagaan qataraha nooga imaan kara xadka aanu la wadaagna Soomaaliya naanu difaacno shacabkeena. ciidamadeena way sii joogi doonaan Soomaaliya ilaa walaalaheena Soomaaliyeed ay ka helaan xasilooni iyo kala dambeyn dabadeetana waana kala soo bixi doonaa ciidamadeena Kenya ayuu yiri. ugu dambeyntii waxa uu sheegay in bilowga sanadkan ay dhici doonto doorashada madaxtinimada waxaana kula dardaarmay shacabkiisa ku nool Malaysia inay ka codeyn karaan safaaradooda oo halkaasina loo keeni doono sanduuqa lagu rido codka. booqashada ra'iisul wasaaraha Kenya uu ku maray qaar ka mid ah wadamada Asia ayaa ku soo beegmaysa xilli Kenya ay isu diyaarinayso doorashada madaxtinimada taasoo la filayo inay dhacdo dhamaadka sanadkan ama bilowga sanadka cusub ee fooda inagu soo haya. Saciid Cumar, Universal TV.